waxaa jira qalad aad samayso oo ka hortaaganaya hesha views badan xitaa hadaad samayso waxyaabahan ku sheegnay muuqaalka soo loo helo views badan dhammaan youtuberada yaryar waa ay sameeyaan qaladkaas waa inuu scriptigaagu liito scriptigaaga oo liita waxa uu channelkaaga ku sababi karaa inuu channelkaagu kori waayo sidee buu scriptigaagu u saameyn karaa korniga channelkaaga sidee baad u qori kartaa script soo jiidasho leh halkaan ku qoraa scriptiga su'aalahan iyo kuwo kale oo badan waxaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkeenan intaan bilaabin saa loo qoray scripti horta waa inaan ogaanaa waa maxay scripti ayaana u baahan scriptiga iyo imisa qaybood ayuu u qaybsamaa scriptiga waxa loola jeedaa intaana duwin muuqaalkaaga inaad sii qorato wixii aad ku hadli lahayd scriptiga waxa loo qoraa laba qaabka koowaad waa inuu qofku qorto wax walba uu ku hadlayo wana qaabkan anigu isticmaalo qaabkan ayaa loogu talagalay inay adeegsadaan youtuberada facelesska ama ku aan wajigooga muujin qaabka labaad inuu qofku sii qorto mowduucyada ugu muhiimsan kadibna intuu kaamirada furto uu ka hor sharaxo isagoo wax warqada ka akhriyeenin qofkaasi waxa uu scriptiga uga baahan yahay inuu sii xariiqdo pointiyada ugu muhiimsan haddaba saad ku qori kartaa script soo jiidasho leh marka aad doonayso inaad qorto scripti waxaad u baahan tahay inaad haysato mowduucii aad ka qori lahayd scriptiga markaad hesho mowduucii waxaad u baahan tahay inaad samayso research haddaanad samayn baaritaan kuma suurtogeliso inaad qorto scripti waayo waxay noqon kartaa sababta ugu weyn ee scriptiga ka dhigi karta mid bila soo jiidasho ah inaad macluumaadkaaga si fiican u raadin taasi ma aha wadada saxda ah ee lagu qori karo scripti sababtoo ah ma haysatid macluumaad ku filan baaritaanku waxa uu leeyahay tallaabooyin la qaado waxaana ugu horeeya waa inaad xadidaa mowduuca uu ku saabsan yahay muuqaalkaagu tusaale ahaan sida loo noqdo youtuber hadda waxaan haysanaa mowduuc xadidan kadib mowduucii u samee pointiye muhiim ah pointiyada muhiimka ahna u sii samee subpoints ama ciwaan hoosaadyo ciwaan hoosaadyadu waxay kaa caawinayaan inaad sii sharxi karto macluumaadkaaga tusaale ahaan waxaan ka hadlaynaa sida loo noqdo youtuber pointiyada muhiimka ah ee ka bixi kara mowduucaasi waxay noqon karaan xadid mowduuca aad ka hadlayso samayso YouTube channel qorshee muuqaaladaada mowduucyada muhiimka ahna waxa ka sii bixi doona mid kasta subpoints oo ah xadid mowduucaad ka hadlayso waxa ka sii bixi kara dooro mowduuca aad jeceshahay ka fikir khibrada iyo waxyaabaad kaga duwan tahay mowduucyada kale samayso channel waxa ka sii baxaya isaguna samayso Gmail kadibna u sii samayso channelkaaga customize garee oo u samee profile picture iyo banner qorshee muuqaaladaada iyagana waxa ka sii bixi kara ogow dadka ku dhageysanaya u samee waqti aad soo geliso muuqaaladaada subpoints kasta waxaad ka sii bixin doontaa faahfaahin dheeri ah waxa jira mushkilad oo ah inaad haysatid mowduucii oo aanad garanaynin halkaad ka keeni lahayd ciwaanada muhiimka ah iyo ciwaan hoosaadyada waqti xaadirkan aad ayay u fududahay soo furo ChatGPT kadibna waxaan ka baari doonaa mowduuca sida ku noqon kara youtuber waxa uu noo soo saaray macluumaad isku dhex taadsan waxaan amri doonaa inuu ka sii sameeyo subpoints si aad u wada jeedaan waxa uu noo soo saaray macluumaad habaysan oo leh subpoints ka rabnay script formula scriptigu waxa uu leeyahay qaacida fudud oo hadaa dabaqdo uu noqonayo mid professional ah scriptigu waxa uu qaybsamaa 3 qaybood intro context iyo CTA bal mid kasta aan dul istaagno intro ama hordhacu waxa go'aaminaya in la dhameysto muuqaalkaaga xitaa hadduu muuqaalkaaga si fiican loo soo qoray scriptigiisu oo hordhiciisu liito dadku way ka yaaci doonaan muuqaalkaaga waxaa jirta qaacido odhanaysa hadduu muuqaalkaagu 15 sekin ee ugu horeeya soo jiidasho yeesho muuqaalkaagu dad badan ayuu gaari doonaa sidaa daraadeed marka aan qorayo qoraal qaadanaya 6 saacadood hordhac waxay kaga baxa 1 ilaa 2 saac waxaa jira qaab badan oo loo qoro hordhac soo jiidasho leh waxaana ku tilmaami doonaa 3 ka mid ah ka hadal mushkilad haysata dadweynaha waa inaad ogaataa dadka uu muuqaalkaagu bartilmaameedsanayo iyo mushkiladaha uu xalinayo tusaale ahaan muuqaalka sida loo helo views badan waxa uu bartilmaameedsanayaa youtuberada cusub mushkilada uu xalinayana waa views yaraanta waxaan hordhiciisa ka dhigay sidan walima sameeyay video waqti badan ma kaaga baxay kadib markaad YouTube-ka soo dhigtay ma daawadan 5 qof ilaa 6 qof oo ma isweydiisay muuqaalkaaga maxaa ka qaldan hordhaca labaad ku bilow su'aal weydii daawadaha su'aalo si uu raadiyo jawaabahooda kadibna uu dhameysto muuqaalkaaga tusaale ahaan horey ma isku weydiisay su'aashan maxaa loo dhisay ahraamta maxayna tahay sirta ka dambaysa ahraamta hordhaca saddexaad ka cabsi daawadaha oo saan uga cabsiya daawadaha ma waxaan u daaraa muuqaalo cabsiya maaha saad u fikiraysid ka cabsiinta daawaduhu maaha inaad muuqaalo cabsiya daawasiiso laakiin waxa weeyaan inaad qofka ku tiraahdo ha samaysaya sidaa intaanad maqal macluumaadkan tusaale ahaan
anaqo YouTuber 2024 inta aad dhageysan macluumaadkan noqoshada YouTuber guuleysta aad iyo aad ayay u sahlan tahay sanadkan sababtoo ah YouTube waxa uu muhiimad siinayaa YouTuberada cusub. markan waxaan soo helnay hordhicii waxaan u gudbi doonaa talaabada labaad oo ah sa loo qoro nuxurka ama contactiga. nuxurku waxa uu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee ku soo gudbinaysa macluumaadka aad rabto inaad gaarsiiso dadweynaha. marka had iyo jeer ka dhig mid faa'iido leh hana ka dhigin mid bilaa faa'iido ah sababtoo ah waa qaybta uu daawaduhu u soo galay si uu u daawado. qaybta ugu dambaysa CTA-ga CTA waxaa laga wadaa call to action. waa inaad ka dalbataa daawadayaasha inay kuu saaraan like, subscribe iyo comment, waayo haddaanad ka dalban cid wax kuu saaraysaa ma jirto. sidee buu scriptigaygu u saameyn karaa korniga channelkayga? marka uu liito scriptigaagu dadku kuma raaxaysanayaan daawashada muuqaalkaaga kadibna si degdeg ah ay uga baxayaan oo muuqaalka lagu tagayaan, waayo waxaa lagu jiraa tartan oo waxaa lagu kala tartamaya daawadayaasha. muuqaalka si degdeg ah looga baxo waxa uu YouTube algorithm kuu qaadanayaa inuu muuqaalkaasi yahay mid bilaa faa'iido ah kadibna dad badan ma gaarsiinayo. halkaani waxaad ku wayi kartaa views badan iyo subscribe. juhdigii aad soo baxsayna waxau noqonayaa mid bilaa faa'iido ah. halkan ku qora scriptiga. waxaad ku qori kartaa scriptiga buug iyo qalin, laakiin anigu waxaan adeegsadaa applicationka loo yaqaano Notion oo ah mid free ah kuna shaqaynaya mobilka iyo laptopka. applicationka waxaan ku jecelahay qaabka fudud ee ku baran karto inkastoo uu leeyahay faa'iidooyin badan oo aad adeegsan karto dhinaca waxbarashada. waxaa jira muuqaalo badan oo ka hadlaya sida loo adeegsado applicationkan oo ku jira YouTube-ka. waxaan soo gaarnay guntii gunaanadkii. muuqaalkan hadduu ku cajabiyey fadlan la wadaag asxaabtaada, hanagana ilaawin like iyo subscribe-ta. muuqaalka kan xigana maxaan ka soo hadalnaa? haddii ku hayso views yari dhinaca YouTube-ka fadlan daawo muuqaalkan. wassalaamu calaykum.